ugu horeeya biyaha iyaga waxba hooran maayo hawshoodu way socotaa war dariiq walba kulli waa la qodayaa waxaan baan leeyahay halka waa in la soo dedejiyaa in badan baynu sugaynay biyaha Hargeysa biyaha intaasaan kaga baxaya caafimaadku kulli imaka waa kan xanuun iyo wax jiraan ilaahay hay naga hayay caafimaadku waa laba qaybood oo qaybide waa qaybta dawladda qaybina waa qaybta shicibka marka kulli waxaan soo jeedin lahaa dawladda shicibka iyo waxbayada ka mas'uula waxaan soo jeedin lahaa in arrimaha bulshada kulli dadku waa dad yar u fara badan qaybtiisa markaad eegto Soomaaliland caafimaadkuna aad iyo aad ayuu u badan yahay qofka xanuunsanaya waxa laga qaadaya sideedabana waxa dawladdu u yahay waxa weeye waa afar shay oo dawladdu ka mas'uul tahay waa biyaha caafimaadka waxbarashada iyo maxaan ku dhahaa caafimaadka waxbarashada iyo biyaha afarta qaybood bay ay ka mas'uul tahay dawladdu inay ka warhayso oo ay ogaato waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay waxaan leeyahay afarta shay waxaan soo jeedin lahaa marka horeba dastuurkeenu wuxuu dhigay in ganacsigeenu xor yahay waxaan soo jeedin lahaa oo anigu aan soo jeedin lahaa in afarta shay ganacsiga horta laga saaro gaar laga yeelo oo lagu kaantaroolo dadka oo ay dawladdu ku kaantaroosho ayaan soo jeedin lahaa maadaama ay tahay wixii ay dawladnimada ku haday taas waa taa waxa kaloo iyadana aan u gudbaya waxbarashadu waxa weeye waa public iyo private iyaduna halka ma aragtaa waxbarashada waxa weeyaan waxa loo baahan yahay for example inkastoo hay'ado badan oo dawladda ka mid ah oo aan lacag qaada ay jiraan marka imtixaanaadka la qaadayo labada imtixaan ee ah dugsiga eedharka iyo foorfoorada marka la qaadayo maadaama ay dawladdu dee labadii qaybood ba ay ka mas'uul tahay waxaan horta marka hore soo jeedin lahaa ardayda dawladda ee eedharka ka baxaysa waxa laga qaadaa 30,000 shilin kuwa foorfoorada ee dawladdana waxa laga qaadaa 80,000 shilin eedharka shicibka waxa laga qaadaa kuwa eedhka $10 foorfoorada waxa laga qaadaa $20 ugu yaraan dee waa 20,000 ama 10,000 oo arday lacagtaasi miisaaniyadda dawladda ma gasho waxa weeye lacagta hay'adaha dawladda ka mid ah lacagta aan hay'adaha dawladda ka mid ah aan lacagtoodu gelin maxaa ku dhamaa miisaaniyadda dawladda ayay ka mid tahay waxaan soo jeedin lahaa dawladdu iyada ka wada mas'uul ah
kuwa public iyo kuwa private kaaba halka qiimo aad u badan ayay isdheeriyihiin qiimaha ay isdheeriyihiin dee 30 kun iyo 80 kun iyo $10 iyo $20 waa garanaysaa inta isdheeriyihiin waxaan soo jeedin lahaa halka kulay in halka horta la eego oo aanu soo jeedin lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland lacagta cid gaar ah ay jeebadeeda ku dhacdaa dawladda xaggeeda uma kacdo miisaaniyadii lacag baa ugu jirta xabayaan waxaynu qarsanaa waxaad qarsataa way ku qarsadaan baa leeyahay miisaaniyada lacag baa ugu jirta imtixaanaadka hay'adana lacag bay siiyaan saddexda qaybood bay lacag ka soo gashaa waxaan soo jeedin lahaa arrinta madaxweynuhu inuu fiiro gaar ah u yeesho taa intaasan kaga baxaya waxa kale oo iyaduna jirta dawladaha hoose waxa loo doortaa waa inay caasimadda hagaajiyaan iyo xashiishka iyo wax walba ka guraan oo hagaajiyaan taa lafteedana xashiishkii dee dawladaha hoose loogu talagalay inay iyagu mas'uul ka yihiin fayadhowrka iyo caafimaadka inkastoo xanuunada ay jiraan waxa weeye waxaan anigu arkay shirkadaha horta gaar loo leeyahay baa xashiishka gura shirkadahaasi laba qayboodba way ku xun yihiin qaybta koowaad xashiishka markay qaadaan baabuurtoodu iyagoo xashiishkii soo rogay hadday doon qaar saaran yihiin ba waxay yimaadaan meelaha dadku public ay joogaan ama wax ka cunayaan ama ka cuntaynayaan halkan Masjid Nuur shishadiisa markaad yara dhaafto makhaadayro halkaas oo macaana lagu yibiyo ayaa waxaan ku arkay baabuurtii xashiishka soo daadisay oo dhan oo halka tubanoo halka ka qadaynaya meeshana caana lagu yibinaya wax kasta lagu yibinaya waxa weeyaan arrintaasi waa arrin aad halis u ah arrintaasi waa arrin aad halis u ah xanuuno fara badanina way jiraan taasi waa mid waxaan soo jeedin lahaa in loo sameeyo meel lagu xareeyo markay xashiishka soo guraan oo magaaladaba aanay soo gelin gawaarida xashiishka qaada xataa markay qaadayaan dadkii oo halkan marayo yaa ay halkan ku gurayaan oo waqti aan dadku ay banaantan way ku aboontayn iyaga laftoodu qaadaan waxa kale oo taaba ka sii daran dadka maanta lacag haysata mise inta lacag haysan dadka inta $5 iska bixinaysa xashiishka ayuun baa laga qaadaa xashiishkii kale magaalada uu yaalaa oo cidima qaado maalin baan ku yiri war kan maxaa u qaadi weydin qaar waxay yiraahdeen deekeen lacagto marka waxa weeye waxa halka ka muuqata wixii dawladda hoose lahayd cidina kuma daba gashan nimanka xashiishka iyaguna ma qaadaan wixii aan lacag haysan cid kama qaado waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxyaabaha noocaas oo kala ah waa fiiro gaar ah in loo yeesho bay u baahan yihiin cid daba gashana in loo doono marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan caafimaadku imaka dee uu halis ba yahay oo meel walba xanuuno ay waddanka jiraan waxaan soo jeedin lahaa in arrintaa fiiro gaar ah loo yeesho.